السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta waxaan rabaa inaan kusoo qaato hal su'aal kaliya. Su'aashaas oo ah waxa i soo wacday hooyo Soomaaliyeed oo walwalsan oo rabtay inaan wax ka dhaadhiciyo. Hooyada waxa ku dhacay gabadheedii ayay waxay u dirtay Afrika. Ima sheegin wadankay u dirtay laakiin waxay tiri Afrika u diray aabaheeda meesha jooga. Marka haddana waxa ay daba taagan socialkii ama xafiiskii arrimaha bulshada ayada dhaqaale siin jiray. marka waxay rabaan mar walba telefoon ii soo diraan waxay iga shakiyeen in gabadhii aan soo guday iyo in kale aan raba inaan soo gudo gudniinka fircooniga. marka anigana arintaa maahan aabaheeda rabtaa inay soo salaamto. marka hooyadii waxaan ka dareemay inay aaminsan tahay dadkii laba in loo kala saaray dad gaala ah oo ayada daba taagan oo raba inay Soomaalida caruurta iyo dhammaan inay bedelaan dad European oo ay iyada ku soo degtay oo ilaa intay deganaanayso la noolaanayso ilaah baa og oo haddana weligeed ka shakisan oo aaminsan inay diyaar u yihiin inay caruurtii weerar ku soo qaadaan caruurtii gaaleeyaan ama ay bedelaan in ay mar walba daba taagan yihiin dad cadow ah. dad badanna waa arrimahaas way la aaminsan yihiin hooyadaada kale. marka waxaan rabaa inaan arrimaha xoogaa isla fiirino. hooyadii waa ka dhaadhiciyey waa ka sheekaysanay problemkeedana waa problem hooyooyin badan oo Soomaaliyeed haysta. marka hore aan kala qaadno haddii gabadhii ay Soomaaliya u dirtay inay soo guddo markii hore dhammaanteen waxaan u haysanay gudniinka inuu diinta ka mid yahay gabdhaha la gudaayo. marka dad badanna ay samayn jireen. haddana waxaa la ogaaday oo aan wada ogaanay inuu yahay gudniin fircooni ah oo aan jirin wax caddeynaya maragtay inuu diinta ka mid ahayn. marka haddii ayada arintaas ay rabto haddana arintaasna ay khilaafsan tahay sharciga wadankan ayada qaldan. waxaa fiican in sharciga wadanka maaragtay qofku uu degan yahay inuu raaco. taas mid ta labaadna haddii dhammaanteen aan aaminsannahay dad aan rabno inaan muddo la sii noolaano haddana aan u haysano inay cadowna u yihiin. marka waxaa imaanaysaa in dadkii mujtamacii iyo anaga mar walba aan kala noqono ayaga iyo anaga oo dhexdeena u dhexeeyo. dad baa waxaa jira in ay arintaas sabab uga dhigaan maadaama kala diin aan nahay mar walba anaga iyo ayaga ayaan kala nahay oo farqiyaa noo dhexeeyo. waa run marka hore kala diin aan nahay laakiin diinteyda waxaa waajib igu ah inaan ka dhigo anaga oo ayaga laftigoodii aan ka dhacday. sida aan uga dhigi karna waxay tahay inaan isbarano wada shaqeyno. taana waxay keenaysaa in aan wadanka aan ku noolahay marka hore aan fadhiisto oo mar walba aanan dhihin dadkan waxyar aan ka faa'iido aan ku moodo kadibna wadankayga intaa uga laabanayo. tii ku laabashadiia waxay keenaysaa in halkana aadan taagneyn Soomaalina aad joogin. marka hore waxaan rabaa inaan dad badan aan ka dhaadhiciyo sharciga wadankan ka jira iyo wadamada Yurub oo dhan iyo Mareykan oo ah in social support la siiyo shacabka oo shibilka dadka aan shaqaysanin dadka caruurta leh ma aha mid loogu talagalay Soomaalida markay soo socotay oo qaxooti ahaan oo la dhahay Soomaaliya soo socota qaxooti dalkooda baaba'ay barnaamijkii hala sameeyo. waa mid bilowday mar hore. Yurub waxay soo martay dhibaatooyin sida anagana haysto oo kale. maanta waxay soo mareen inay dhexdooda isdilaan qabaayil ay soo mareen. waxay soo mareen inay isku baabi'iyaan dadka maalqabeenka iyo dadka kale. waxay soo mareen dumarka inay liidaan. dhib walba 200 sano 300 sano ka hor waxa way aad bay soo gubteen. kadibna waxay yimideen inay nidaam sameystaan iyo sharciyadii ayaa ilaa iyo loogu talagalay inay dadka ku noolaadaan. lacagtan dhaqaalaha la siinayo shacabka oo loogu talagalay inay dadkii lagu taageero waa mid